wareejiye tusbax iyo mobile galkiis iyo waxaan maclaan iska daba ka wareejinahaya isaguna waa mamnuuc gobolkan waxaan ka rabnaa inuu nabad noqdo gobolkan waxaan ka rabnaa in cadaalad laga helo gobolkan waxaan ka rabnaa inuu hore maro gobolkan waxaan ka rabnaa inuu noqdo magaalada waxaan rabnaa gaalkacyood iyo gobolkan Singapore inuu noqdo inuu ka qurux badnaado Soomaaliya inteeda kale aan rabnaa waxaan marka hore dhacday yaro xalay dhacday oo nin ku dhintay reer Puntland reer gaalkacyood waa ka tacsiyeynaa marxuumka Allah u naxariisto waana ka wada hadalay heladiisii waanu isaragnay dhimashadii iyo xaajadiisii aaskiisina waa ka qayb galeynaa oo mar u dhacaya arinta kale waxa weeye amnigu maanta go'aamaha ka soo baxay shirka amniga waxaan ku jirnaa dagaal argagixiso oo magacyo badan leh dagaalka argagixisadu saameyn badan buu wadanka ku yeeshay oo isqarxinta kaliya ma aha daroogadii bay ku soo gabadeen qabyaaladii bay ku soo gabadeen deegaamintii bay ku soo gabadeen isku dirkii beelaha ku soo gabadeen dagaalka weyn argagixisada aanu ku jirnaa la dagaalanka argagixisada ayaan waxaanu ka soo saaray go'aamo aan ugu talagalay inaanu ku xoojino amniga kow waxa la mamnuucay oo gaalhay mamnuuc ka ah ama gobolka mudug baka mamnuuc ah wareejiye dadka alaabta wareejiya iyo warata aan sharci ahayn oo aan dawladda hoose shati ka haysan labadaba mamnuuc weey qof warata ah oo meel wax ku warta oo aan dawladda hoose registerkeeda ku jirin oo ay dawladda hoose ka warqabin oo meel wax ku gadanahaya oo bacadla banaan haysta oo aan shati lahayn waa mamnuuc wareejiye tusbax iyo mobile galkiis iyo waxaan maclaan iska daba ka wareejinahaya isaguna waa mamnuuc waxay noqdeen waxaan rabnaa inaan arintaas dadku ay qaataan oo qofkii waxa lagu arko waa dambiile maanta laga bilaabo qofkii ama warata ah oo aan shati haysan dawladeed oo dawladda hoose ayaan ka warqabin ama wax wareejinaya wuxuu noqonayaa qof dambiile ah arinta labaad waxa kale oo aan rabnaa inaanu xoojino la dagaalankii daroogada iyo la dagaalanka khamradii waa soo badatay waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer gaalkacyood hawlgalkii khamradu waa bilaabanaya odayaashii iyo dadkii markii wax dhacaan oo meelaha khamrada wax ka dhacaan maxaan ku iraahdaa advocate-ka u ahaa ama lawyer-rada waxaan u sheegaynaa hadeerba ogaada khamrigii waa soo noqday waxa khamriga aan kala dagaalamayna waa caruurtiina gabdhihiina iyo wiilashiina iyo maslaxadiina iyo nabadiina iyo noloshiina hadana noloshiina aanan khamriga la dagaalamina amnigiina ma sugi karo khamrigu waa umul khabaa'ith waa daroogada mid ugu xun waa wax aad u xun oo aad u liidata oo ilaahayna quraankiisa ku mamnuucay bulshaduna ay marxaati ka tahay inuu khamrada ay ugu xun tahay dadka Soomaaliyeedna dhaqan ahaan ba ay neceb yihiin qofka khamrada cab alkoolista loo yaqaanayo bulshada dhexdeeda waxba kama ah sida ilaahay uusan waxba uga dhigin sababta dadka Soomaaliyeed waa dad asluubtooda iyo dhaqankooda oo ku salaysan yahay diin islaam arin saddexaad waxa weeye waxa la rabaa in la xiro luuqyada guryaha luuqyadooda waxay noqotay amni xumada qayb ka noqotay waxa rabnaa labadii guri oo kastaba labada reer oo luuqa u dhaxeeya inay xiraan guri kastana hortiisa ay leer ka sameeyaan si magaalada iftiinkeedii bilicdana wax uga qabsoomaan amnigeedu u sugmo adigu nin islaama oo guri degan baa tahay in amnigu xumaado ama luuqaaga gurigaaga labadiisa luuq aan shaxumana ka dhacdo amni xumana ka dhacdo wax dan oo kugu jira ma jiraan inaad marka waxa la rabaa dawladda hoose ku kaalmaystaan oo aad kala shaqeysaan dawladda hoose mas'uulka ah oo arinta ka shaqeynaysa inaad kala shaqeysaan gurigan ay leer ku xirtaan laba guri oo kastana luuqa u dhaxeeya xirtaan arin saddexaad baa jirto arinta dhulalka ah arinta dhulalku aad bay u soo cuslaatay dhibaato badan baa ka haysata dawladda hoose oo aad iyo aad ay uga cawdeen waxa jira dhulal la isku haysto oo labadii jaanib soo dacwoodeen sharciga la yimaadeen oo ama maxkamad la tageen ama guddiga khilaafaadka ay la tageen dawladda hoose oo jaanibkii markii xukunkii la soo saaray jaanibkii kala iman waayeen waxaan uga digaynaa hadiinaan sharciyada iman qof kasta magaciisa darbiga ku dhajinaynaa waana la soo qabanaya hadda waxaan haynaa ilaa 4-5 kiis oo noocaasa oo dadkii dadka dhul ku qabsaday oo dad akhyaara oo magaalada degan odayaashii magaalada inta dhul ugu qabsaday dad jiriyo ku qabsadeen ayaan iman sharcina keensan qofkii dhul leh ha yimaado aduu dhulku banaan yahana guddiga khilaafaadka dawladda hoose imanaya hadduu dhulku yahay dhul dhisana maxkamadu tagaya labada jaanib inay wada tagaan baa la rabaa
qoladii dhulkaas laga xukumo oo dadkaas xukaamta ay ka xukumaanna waa inay xukunka ku qancaan hadday racfaan ka qaadanayaan racfaan ka qaataan dariiq silmiya ay maraan laakiin dhulkii baan kugu qabsaday mana imanayo oo inaan maxkamadda imaado ma rabo ninkii kale ha iska dacwoodo hadduu rabo aniguna baan leeyahay oo intaan calaamad ku aragtaa markaan rabo qori u soo qaadanaya ma yamshi wax soconaysa ma aha annaga magaaladan waxaan ka rabnaa inay nabad noqoto gobolkan waxaan ka rabnaa inuu nabad noqdo gobolkan waxaan ka rabnaa in cadaalad laga helo gobolkan waxaan ka rabnaa inuu hore maro gobolkan waxaan ka rabnaa inuu noqdo magaaladan waxaan rabnaa gaalkacyood iyo gobolkan Singapore inuu noqdo inuu ka qurux badnaado Soomaaliya inteeda kale aan rabnaa waxaan ku gaari karaa inaan daroogo la diriro argaxiso la diriro tuug la diriro khamriilo la diriro socod la diriro qabyaalad la diriro fidman la diriro waxaan rabnaa marka dadku inay nagala shaqeeyaan waxgaradka ahi dadka 99% waa waxgarad iyo wanaag doon laakiin 99% iyagoo waxgal ah hal qof oo nijaas ah oo aan khayr rabin oo amargadixiso u shaqeeya ama iimaan laawo ah oo xaraan ku naaxo dad dhulkiisa wuxuu bartay ilaa iyo muddo ku soo jiray la qabsaday ama noqday qof si xun u socda oo darogeysta ah ba bulshadii fidma ku dhaxwada dadweynaha waxaan rabnaa wanaagsan oo reer gaalkacyood ama reer midowga sharafta badan in arrintan nagala shaqeeyaan aadna dawladda hoose loogala shaqeeyo arrimaha dhulka iyo luuqyada iyo layrka magaalada la layreynayo dawladda hoose laba kacleyn cusub ay wada runtii oo shaqo fiican bay wada aad ugu bogaadineen aad baan ugu mahadcelinaynaa aad baa u mahadsantihiin bahda saxaafadda iyo madaxa shirka soo qayb gashay waa salaamiya waa mahadsantihiin